السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة سود وهذا أدي هذا ومهتسنتين ما أنتوا واجمعوا وأنا تواني تضبط بشا تضبط جولاي سنة كلبض كون إيه اللحية لباتنك مقال كان واحد ربعنا ندي كل وذاقوا عبد الكريم إدلة أو سدح تضبط كهر مقالة مقدشة لقصة قبتي إسلام كان الله هايستي كيس كيف فيدنا ورفيوجر أي شلة لكان قبل كمينيسوتا جرهان مقالة مينيابوليس ما أنتنا محكمة أي لسوتاجي arrintaasi waan idinla wadaagayaa madaxweyne Trump hadalkii xalay uu u jeediyay shacabka Mareykanka oo shaaca kaga qaaday in ay dawladdiisu ay soo bandhigayso cadeymo la xiriira in doorashooyinkii madaxtinimada ee sanadkii 2020 ay soo faragelisay dawladda Shiinaha isla markaana xogta in ka badan 200 oo milyan oo qof oo codbixiyaasha Mareykanka ay gacanta ay ku dhigtay ayaan idinla wadaagayaa iyo waliba dawladda Shiinaha oo arrintaasi iska fogeysay madaxweyne Trump ninkii u qaabilsanaa kombiyuutarka marka madaxweynuhu khudbadaha uu jeedinayo qoraalka madaxweynuhu uu aqrinayo ninka u qaabilsanaa shaashada madaxweynuhu uu ka aqrinayo qoraalka ninka u qaabilsanaa inuu hago oo lagu helay in uu qamaar ku dhigtay hadalka madaxweynaha waxa uu dhahayo iyo waxa uu san dhahaynin lacagta uu ka helay maxay dhan tahay iyo waliba aqalka cad oo ninkaasi shaqo joojin ku sameeyayna waan idinla wadaagay ligi coronavirus-ka loogu talagalay in caruurta low income-ka oo dhaqaalahoodu uu hooseeyo cunto lagu siiyo cabdikariin 4 sano ayuu baxsad ahaa dawladda Mareykankana ay raadinaysay waxa ku dhawaad 3 toddobaad ka hor FBI-da Mareykanku ay ku dhawaaqday in iyagoo gacan ka helaya ciidamada sirdoonka ee Soomaaliya ee NISA in cabdikariin iidle lagu qabtay magaalada Muqdisho haddaba cabdikariin shalay gelinkii dambe ayaa la keenay Mareykanka waxaana laga soo dejiyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota xalay waxa uu ku bariyay xabsiga Sherbrooke sawirkana waxa laga qaaday markii xabsiga la dhigayay waa magsheedkiisii ugu horeeyay cabdikariin iidle waxa uu wajahayaa 31 dacwadood oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo sidoo kale lacaga si sharci darro ah inuu u xawilay iyo dambiye kale oo aad u fara badan iyo in uu sidoo kalena lacaga kickback qaatay waxaana lagu eedeynaya in ka badan 5 milyan oo dollar oo lacag ah in cabdikariin uu qaatay waaranka lagu soo xirayo ee federaalka cabdikariin waxaa la saxiixay bishii September ee sanadkii 2022 wuxuuna ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee kiisaska lagu soo oogo keeskan feeding our future marka shalay markii la keenay kadib ayaa waxaa hadlay xeerlaaliyaha federaalka ee gobolka Minnesota u qaabilsan dawladda federaalka Daniel Rosen waxaana uu sheegay soo qabashada iyo keenista cabdikariin Mareykanka la keenay inay muujinayso in gacanta dheer ee sharciga Mareykanka qofku uu ka carari karo laakiin uusan ka dhuuman karin taliyaha FBI-da Kash Patel ayaa isaguna waxa uu ku tilmaamay arrintan mid taariikhi ah waxaana uu sheegay in soo qabashada cabdikariin ay qayb ka tahay ilaa iyo 25 qof oo FBI-du wadamo kala duwan ay ka soo xirtay bishii la soo dhaafay waxaana isaguna uu sheegay in qofku uu ka dhuuman karo waa sharciga Mareykanka laakiin meel kasta uu joogo in FBI-du ay gacanta ay ku soo dhigayso cabdikariin maanta ayaa maxkamadda la soo taagay waan arki doonaa haddii dambigiisa uu qirto iyo haddii uu doorto in la maxkamadeeyo oo maxkamadda uu doorto marka kulay Amy Bag waxaan ognahay bishii shanaad ee May 22keedii 41 sano iyo 6 bilood in lagu xukumay marka isagana waan arki doonaa cabdikariin inta xabsi ah oo mutaysan doono arrintaas haddii intaasi aan ka gudbo madaxweyne Trump xalay shacabka Mareykanka khudbad ayuu u jeediyay ilaa iyo 25 daqiiqo ahayd madaxweynuhu wax kale ma uusan ka hadlin waxa uu ka hadlayay doorashooyinkii sanadkii 2020 ee madaxtinimada oo Biden uu kaga guuleystay in dawladdiisu ay heshay cadeymo muujinaya in Shiinuhu ay farageliyeen doorashadaasina la musuqmaasuqay madaxweyne Trump ilaa hadda waa uu ka sabri laayahay doorashadaasi uu leeyahay waa la iga xaday oo la igama guuleysan madaxweyne Biden 7 milyan oo cod ka badan ayaa Trump uu ka sareeyay codka popular vote oo codka shacabku ay dhiibtaan electoral college-kana 306 ayuu Biden helay halka Trump uu 232 uu ka helay Trump waxa jirtay in 60 dacwadood ka badan oo maxkamadaha Mareykanka u gudbiyay oo dhahaya doorashadan waa la xaday gabi ahaantoodna waa la diiday xitaa garsoorayaal Trump oo magacaabay ayaa arrintaasi diiday marka madaxweyne Trump xalay hadalkiisa uu shacabka Mareykanka u jeediyay waxa uu ku sheegay in doorashooyinka Mareykanka
markastaba shacabku markay codkooda dhiibtaan ay rajaynayaan in si cadaalad ah codkaasi loo tiriyo, laakiin waxa uu yidhi systemka hadda aan haysano waxa uu u nugul yahay in la xaakin gareeyo amaba dowlado shisheeye ay soo farageliyaan. waxaana uu xaqiijiyey in arrin sir ah oo in muddaha shacabka Maraykanka laga qarinayay ay u soo bandhigayaan. maxaa yeelay waxa uu yidhi guddiga aqalka cad u qaabilsan dhinaca hufnaanta iyo sirdoonka Maraykanka ayaa waxay shaaca ka qaadeen caddaymo fara badan. waxa uuna xaqiijiyey in xaqiiqooyinkaasi hadda kadib aan la qarin doonin, waana xaqiijina ayuu yidhi xaqiiqnimada warbixinadan aan soo bandhigayno oo markii hore sir ahaa. waxa uuna shacabka Maraykanka u tilmaamay in whitehouse.gov ay ka eegi karaan caddaymahaasi oo uu sheegay muujinaya in doorashooyinkii sanadkii 2020 dowladda Shiinaha ay soo faragelisay, islamarkaana sidoo kale ay doonaysay Biden inuu guulaysto oo anigu inaan guulaysto marnaba aysan doonin. waa kan madaxweyne Trump oo arrintaasi ka hadlay. gacanta ay ku dhigtay xogta ama faylalka codbixiyaasha ee 220 milyan oo shacabka Maraykanka. dadka Maraykanka waxaa lagu qiyaasaa 330 milyan ilaa iyo 340 milyan. marka waxa uu yidhi 220 milyan oo ka mid ah xogtooda codbixinta ayaa dowladda Shiinaha ee gacanta ay ku dhigtay, waxaana ka mid ah magacyadooda, adreesyadooda, nambaradooda, xisbiyada ay ka tirsan yihiin iyo sidoo kalena xog kale oo muhiim ah oo codbixinta Maraykanka la xiriirta. dowladda Shiinaha sanadkii 2020 doorashada Maraykanka sababta ay u soo faragelisay ay ahayd in aysan doonayn in isagu uu soo baxo. maxaa yeelay waxaan ku soo rogi lahaa uu yidhi canshuurad dheeraad ah ganacsiga labada wadan ka dhaxeeyay. waxaana uu xaqiijiyey sidoo kale inay heleen warbixino muujinaya in Shiinuhu ay soo saareen waraaqo codbixina oo sharci darro ah oo Biden dartii ay u soo saareen. waxaana sidoo kale uu xaqiijiyey in Shiinuhu ay dowlad kale oo ka hoos maamulayeen dowladda maamulkii madaxweyne Biden, islamarkaana waxa uu sheegay in caddaymo fara badan ay rumaysan yihiin in wasaaradda cadaaladda ee madaxweyne Biden ay qarisay, islamarkaana hadda ay shaaca ka qaadayaan. waa kan mar kale madaxweyne Trump oo arrintaasi intii madaxweyne Trump waxa uu sheegay in FBI-da uu ka doonayo in baaritaan lagu sameeyo dadka arrintan ku lug leh, islamarkaana dacwada lagu soo ogo iyadoo wasaaradda cadaaladda la kaashanayo. madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in wasaaradda amniga gudaha baaritaano in muddaha ay sameynaysay iyadana shaaca ay ka qaadayaan. waxaana uu sheegay inay ogaadeen in 278,000 oo dad aan sharci lahayn in ay u diiwaan gashan yihiin gobollada Maraykanka inay codeeyaan. madaxweyne Trump in muddo ah markii uu xilka la wareegayba waxa uu dhammaanba gobollada Maraykanka aqalka cad uu ka codsaday in xogta dadka codbixiyaasha ah ay la wadaagaan aqalka cad. gobollada Republikaanku waa ay la wadaageen, laakiin kuwa dimuqraadiyiintu gabi ahaanba waa ay ka soo horjeesteen. marka waxa uu yidhi waxa aan doonaynaa maadaama doorashooyinkii xilliga dhexe ay nagu soo dhow yihiin in gobollada Maraykanku ay xogtooda codbixinta ay ka saaraan dadka aan sharciga lahayn amaba kuwa dhintay. waxaana uu xaqiijiyey in gobollada dimuqraadiga ah ay arrintaasi ku badan tahay. waa kan madaxweyne Trump oo mar kale arrintaasi ka hadlay. madaxweyne Trump inuu aad uga soo horjeedo mail-in ballotka wax la yidhaahdo, dadku inay codkooda ku dhiibtaan waraaq islamarkaana la tiriyo. madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu uga baahan yahay Kongareeska inay si degdeg ah ku meel mariyaan sharciga Safe America Act oo qasab ka dhigaya qofka isku diiwaangelinaya doorashooyinka federaalka ee Maraykanka inuu codeeyo marka hore inuu yahay muwaadin Maraykana, marka codbixinta uu yimaadana ID sawirkiisa uu ku dhagan yahay uu soo bandhigo. waxa uu yidhi arrintan ma ahayn inayna kala qaybiso haddii aan Republican nahay, dimuqraadiyiin ama kuwa madax bannaan, in arrintan namidaysa ayay ahayd. sidaas darteed ayaa xitaa shacabka waxa uu ka codsaday in xubnahooda Kongareeska ay wacaan islamarkaana ay ka codsadaan sharcigaasi in uu meel mariyo, laakiin hadda codad ku filan Kongareeska sharcigaasi kama haysto. marka madaxweyne Trump waxaa muuqatay inuu weli gocanayo in doorashooyinkii 2020 in aan looga guulaysan oo doorashadaasi laga xaday. waxaa jirtay in labadii maalmood oo lasoo dhaafay Kongareeska Maraykanku ay su'aalo weydiinayeen xubin Trump oo u soo magacaabay sirdoonka qaranka inuu hogaamiyo oo la yiraahdo Jay Clayton. haddaba waxaa maalin ka hor la weydiiyey ninkaasi markii aqalka sanadku ay u codeynayeen inay ansixiyaan iyo in kale. senator John Ossoff oo laga soo doorto Georgia ayaa waxa uu weydiiyey ninkan Trump oo u soo magacaabay inuu noqdo agaasimaha sirdoonka qaranka oo la yiraahdo Jay Clayton doorashadii sanadkii 2020 yaa ku guuleystay. waa uuna diiday in uu ka jawaabo. dhammaanba xubnaha golaha wasiirada ee madaxweyne Trump
ma ogola haddii aad weydiiso yaa ku guulaystay doorashadii 2020 Biden ma dhahayaan bal haddaba su'aashaasi markii la weydiiyey iyo dooda dhex martay Senator John Ossoff iyo ninkan Trump uu soo magacaabay agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka Jay Clayton bal wax yar ila daawa. Who won the 2020 election? I'm not going to do this with you. This is a job interview. We've established that you have an obligation to be honest and forthright with the committee. Yes, you do have an obligation to be honest and forthright with the committee? Yes. Who won the 2020 election? Like I said, I'm not going to get into that with you. But you do have an obligation to be honest and forthright with the committee. Is anything that I just said not honest or forthright? Yes, you're not being honest or forthright. Who won the 2020 election? I think I've answered the question. We can keep doing this. Well, we're going to keep doing it because you're not being honest and forthright. No, I'm not going to engage in the theater. It's a simple question, Mr. Clayton. And I've answered Who it. won the 2020 presidential election? I've answered it. You're here asking for the support of senators to lead America's intelligence community. We've established that you have an obligation to be honest and forthright with this committee and with the American public, but you refuse to answer a simple matter of fact about the 2020 election. Is that right? No, that's not right. Then answer the question. Who won the 2020 election? I have answered the question. Answer it. What is your answer? I've given you my answer. What is your answer? You refuse to answer a basic question about who won a presidential election, but you asked to lead America's intelligence community? Isn't it humiliating to be unable to answer this question, to have to indulge the president's delusions? We know, you know, everybody in this room knows the truthful answer to that question. Why can you not give it? I think I gave you the answer. ugu dambeyntii arrintan la yaab kale ayaa shalay soo baxday madaxweynaha Mareykanka marka uu khudbaynayo waxaa jirta khudbadiisa shaashad ayuu ka aqriyaa hortaala shaashadaasi waxaa jira qof qoraalkaasi u hagaya isla markaana madaxweynuhu mararka qaar waxyaabo aan u qornayn ayuu ka hadlayaa markaasi qofka hagaya khudbadda madaxweynaha qoraalkaasi waa inuu istaajiyaa nin waxaa jirta marka madaxweyne Trump muddo 10 sano ka badan shaqadaasi u qabanaya oo la yiraahdo Gabriel Perez ninkaasi ayaa waxaa lagu helay marka inuu musuqmaasuq sameeyay maxaa yeelay website-yo waxaa jira saadaalinta amaba qamaar lagu dhigto madaxweynuhu waxaas ayuu dhihi doonaa dharkaasi ayuu soo xiran doonaa marka ninkan maadaama khudbadda madaxweynaha uu og yahay qamaar ayuu ku dhiganaya madaxweyne Trump hadalkaasi ayuu dhihi doonaa hadalkaasina ma dhihi doono ayaa website-yada saadaalinta oo Kalshi iyo Polymark la yiraahdo gaar ahaan midka la yiraahdo Kalshi ayuu qamaar ku dhiganaya wuxuuna ku helay lacag $100,000 ka badan arintaasi oo sharci darro ah maxaa yeelay xog aad og tahay in aad qamaar ku dhigato arintaasi waa sharci darro isla website-ka ayaa aqalka cad ku soo wargeliyay ninkan hadda shaqadii waa laga joojiyay mushaarkiina waa laga joojiyay waxaana baaritaan ayaa ku socda iyadoo laga yaabo inuusan xabsi mutaysan haddii uu soo celiyo lacagtii uu qamaarkaasi ku helay marka aqalka cad xitaa shalay afayeenka aqalka cad waa la weydiiyay waxayna tiri madaxweynuhu arintaasi aad ayuu uga xumaaday marka ninkaasi Daniel Perezna qamaar ayuu ku dhiganayay madaxweynaha khudbadii uu og yahay oo hortaalo ayuu qamaar wuxuu ku dhiganayay madaxweynuhu ereygaasi ayuu dhihi doonaa ama ereygaasi ma dhihi doono kadibna lacag ayuu ku helay qamaarkaasi aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale nabadgelyo